السلام عليكم. مربتا inaad wax badan oo ka qarsoon ku ogaatid lugooyooyinka Xasan Sheekh Maxamuud iyo ninka la yiraahdo Cabdikariin Guuleed ay ku hayaan deegaamada SSC qaabka ay ula shaqeeyaan Muuse Biixi iyo qaabka ay u lugooyeen deegaamada SSC marabta inaad wax badan ku ogaatid barnaamijka ma dhameystiranaysa haddaad rabtid xogta inaad ogaatid inta aanan falanqaynta iyo faalinta iyo rogista aanan u guda galin waxaan rabaa inaan kula wadaago clip yar oo hadda oo Cabdikariin Guuleed uu ku hadlayo oo runtii wareegayo booqasho ku tagay Jubbaland baa iyo boqol hadda ka hor uu tagay maamuladu wareegaya si uu ra'yi iyo taageero uga helo ra'yiga iyo fikirka uu wato ee uu ku badbaadinayo maamulka Soomaaliland isagoo oo deegaamada SSC-na lugooynayo isagoo isticmaalaya dawladda Soomaaliya awoodeeda marka intaanan guda galin barnaamijka waxaan rabaa inaad ila eegtaan clipkan. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta si nabad ku soo gaarnay anigu daan hogaaminayay magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland safarkan wuxuu qayb ka ahaa safar wada tashi ah aan ku marinay dhamaan dawlad goboleedyada Soomaaliya aan ka soo bilaabnay dawladda Koonfur Galbeed runtii sharaf ay noo ahayd inaan soo gaarno magaalada Kismaayo oo mahadcelinayna maamulka Jubbaland dhamaantii sida diiran sharafta leh ee aniga wafdigan hogaaminayno lagu soo dhaweeyay insha Allah taala intaan joogno waxaan la kulmi doonaa mas'uuliyiinta kala duwan ee maamulka Jubbaland qaybaha bulshada waxayna maaragtay dhamaantood aan kala tashan doonaa arrimaha ku saabsan wada hadallada aan rabno ama dawladda federaalka ay rabto inay la gasho maamulka Soomaaliland iyo qaabkii loola geli lahaa iyo sidii loola hadli lahaa si wada hadalladaasi iyo howlihiisa u noqdaan arrin qaran oo dhamaan dadka Soomaaliya oo dhan ay qayb ka noqdaan ra'yi iyo talona ay ku yeeshaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan mahadcelinayaa maamulka Jubbaland oo uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan sida sharafta leh ee diiran ee lagu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haddaba waxaan rabnaa in aan kala ogaano waxyaabaha ay kala aaminsan yihiin dadka ay khusayso arrintan ninkan ergeyga ah loo magacaabay waxa dawladda federaalka aaminsan tahay inaan ogaano oo aan idin la wadaago ayaan rabaa waxa ay aaminsan tahay maamulkan SSC Khaatumo iyo waxa uu aaminsan yahay maamulka Soomaaliland oo waxyaabaha la isula keenay la yahay si aad u fahamtaan halista jirtana aad si caadi ah u fahamtaan dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hogaamiyo iyo Cabdikariin Guuleedkan iyo waxay aaminsan yihiin in waqooyiga Soomaaliya uu Soomaaliland ta ahaado oo aan maamul kale meesha laga sameyn joogsi taas waa mabda meel ugu guntan waxaanay hadda wadaan waa farsamadii marka maxay rabaan marka waxay rabaan in maamulka Khaatumo SSC iyo maamulka Soomaaliland ay wada hadal galaan iyadoo wax shuruud lagu xulin dawladda Soomaaliya iyada tiri ma wax laga sheegayo ma shuruud la'aan in wada hadal la galo oo micnaheedu ay tahay shuruudan ay SSC ku xiraysay ah ciidamada hana laga hor qaado in ay iska daayaan ciidamada Soomaaliland meesha jooga oo dhulkii haysta oo wadooyinkii xiray oo waxa soo dadalaayay inaan loo raacin oo wada hadal la galo oo la heshiiyo oo sida Soomaaliland lagaga mid ahaado oo maamul gudihiisa istilay oo la heshiisiyay laga dhigo saana ummadda Soomaaliyeed loo tuso dadka SSC-na lagu qanciyo international community-gana sidaa lagu qanciyo sidaasna Soomaaliland lagu badbaadiyo oo burburkii iyo wixii wajahayay saasna ay markaa SSC maamulka samaysan lahayn iyo waxyaabihii oo dhan saas lagaga hortago oo ay halka ku go'do taa haddii suurtagali weydo dawladda baleen eed waata haddii baleen eegaas u suurtagali waayo baleen biigu waxa weeye in wada hadal iyo waqtiga la dheereeyo oo Soomaaliland garab la siiyo sida ay u qabsan lahayd deegaamadan militarily way muuqataa marka in ay marka ay xoog ahaan qabsan karin tan saddexaad marka labadaas u suurtagali waayaan dawladda meel ugu laaban waxa weeye ergeygana loo magacaabay in Soomaaliland lagu badbaadiyo oo Soomaaliland marka la waxa weeye Muuse Biixi iyo xulufadiisa oo inta loo tago wada hadal la galo la yiraahdo warnimayo nimankii wada hadal la diiday xoogna ku qabsan kari weeyday waxaad samaysaa midnimada Soomaaliya qaado oo inaan kugu qancinay aan u dhigno markaad ku qanacdidna anaguna aanu markaa sidii rag tanaasulo iska dhigno oo maamul goboleedkan Khaatumo ee waxaan samaysanayaa maamul sida ha kaaga mid noqdo maadaama ay midnimaan rabnaa
adana midnimaad la qaadatay marka maamul goboleed kaliya uu qoyiga isku ahaada sidaana aynu kaga badbaadno maamulkii SSC Khaatume ee la sameynayay oo Somaliland saaha kaga mid ahaado oo marka federalism waqooyi oo dhan oo hal maamul goboleeda oo Hargeysa sida looga xukumo oo saa dadkiisa loo laayo oo saa loo barakiciyo SSC oo sida dhibkii lagu soo celiyo horta waa baleenka dawladda federaalku ay ninkan u magacawday ninkan in ergey kelmadda loo bixiyo ayaaba crime ah oo dawladda gefku ah sababtoo ah dawlad ayaa dawlad kale ergey u magacawda laakiin wadanka gudihiisii lama oran karo gobol baa ergey loo magacaabaya dalkii ka mid ah waa guddi baa la yiraahdaa waxaas oo kale guddi loo xil saaray gudoomiyaha guddida wada hadalka in la yiraahdo qaab noocaas laakiin ergey ayaa waxay muujinaysaa sidii wax dal oo kale inuu ula macaamilayo taasina waa arrin aad khatar ah waxa iyana khatarteeda leh maxaa ku soo beegay xilligii laascaanood dagaalku ka dhacay halkii dadkii barakacay laga hadli lahaa ee dagaalka loo joojin lahaa Somaliland khaladkay sheegaysa la muujin lahaa waxaasoo dhan si uu u qariyo ayuu xilligaa wuxuu ku soo beegay ergey baan u magacaabay waa maxay dadkii wax dilayay ee wax ku soo duulayay ee dadka qabsanayay ayuu la hadlayaado la sheekaysanayaado suba salaaxayaado masasabayaado oo uu leeyahay arrintii baan ku jiraado muxuu rabaa in dagaalka ay wadaan uu cover noqdo oo marka dadkan inta laga qabsanayo magaalada inta la leynayo inta la barakicinayo in uu dalada kor hayo wada hadal baa socda uu og yahay inaan wada hadlay waxyaabaha cadeynaya waxa kamid ah meel 500 oo qof ku dhimatay ee dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in 36 ay ku dhimatay ergeygii ka socday caalamka waa tii joojinaysay aniga ayaa ergey u magacaabay odayaan u diray dhaqan oo xamarka iyo koonfur ka diray garaadadii baaban u yeeray oo xamar ugu yeero ila hadlaya garaada odayadii dhaqanka ee Muuse bixididay baa la xidho kulan Hargeysa kulan odayadii dhaqanka koonfurta si aan u tusno inaad soo dhaweysay oo loo yiraahdo wada hadal baa socda oo aan adduunku u soo dhexgelin oo loo dambabaso marka dawladda Soomaaliya dagaal caadi ah bay ku haysaa SSC oo siyaasi iyo qof kasta aqal u fahmi karo marka dawladda horta mowqifkeedu waa ka weeyaan waayo Xasan Sheekh Maxamuud ma aaminsana dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya inuu dhamaaday deegaamadan SSC-na wuxuu ku eegayaa okiyaalo wuxuu ku eegay indho wuxuu ku eegayaa qabiil ma doonayo qabiilada meesha degan inay maamul samaystaan oo maxay tahay qabiiladu la dagaalamay oo aaminsan inay kamid yihiin oo maamul saddexaad ay samaystaan qaab noocaas isagu u fikiraya laakiin in dadkii Soomaaliyeed oo dhibaato ku dhacday oo midnimo doonayo iyo kan waxa isaga uma muuqato reer hebel shar iyo khayr waxay doonayeen had dooneen waa isagu dagaal buu kula jiraa waana qoslaya ninkan ergeyga ah maxay tahay in Umar Geelle ayuu toos ugu tagay ninkan la yiraahdo Cabdikariin Guleed markii la magacaabay meel kale ma aadin diyaarad buu qaatay Ismaaciil Umar Geelle ugu tagay Djibouti wax alla wuxuu soo faray buu hadda ku shaqeynaya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Umar Geelle ayaa ninkan ergeyga ah samaystay Cabdikariin Guleed waxa weeye uu wareegaya baydhabo tagay hadda Kismaayo tagaya muxuu rabaa in uu fikirkan uu Somaliland dibkay ku jirto kaga badbaadinayo in uu ka dhaadhiciyo dadka Soomaalida ah maamuladooda oo mid uu laaluusho mid uu wax magacaabo mid uu wax u yeeriyo mid uu lugooyo uu dadka ku soo qanciyo muxuu rabaa in uu xarkaha ka jaro ay haysato oo dhan SSC oo uu go'doomiyo oo Puntland ku qanciyo oo maxay ahayd Jubbaland ku qanciyo oo Bay Boqol ku qanciyo oo maxaan dhahdaa Somaliland uu si u badbaadin lahaa Ismaaciil Umar Geelle hawshaas kula jira marka horta runtii waa rag dagaal ku jira waad ogaan doontaan sida ay Jubbaland markii maamulka la sameeyay ula dagaalameen si lamid ay ula dagaalamayaan iyo si ka daran ay ula dagaalamayaan SSC dagaalkoodina waa bilow waadna aragtaanba hadday tahay 500 oo qof ku dhintay in dawladda Soomaaliya 36 baa ku dhintay caalamka u sheegto inuu ergeygan magacaabo inuu lugooyooyinkaas oo dhan wado Xasan Sheekh waa arda wax badan baa jira oo u baahan in la sheego laakiin ma raba inaan si dhex galo tan kale ay aaminsan yihiin taas wata dawladda Soomaaliya aaminsan tahay waxaynu eegaynaa waxay aaminsan tahay Somaliland waxay aaminsan tahay dal inay tahay go'day calan le Soomaaliya aanay kamid ahayn wax wada hadal oo go'itaanka ku saabsan wax kale ay rabin cid la gasho haddii ay nafta qabsato oo ay nafl caari noqoto waa laga yaabaa oo kiiba Muuse Bixi Farmaajo wada hadalka la galiyay lahaa madaxweynaha iyaga tanaasul si aan u raahdo midnimada Soomaaliya oo qaato marka waa qof ka ganacsanaya waxan oo siyaasadiisu ay ku dhisan tahay maslaxad marka haddii maslaxad la tuso waa laga yaabaa inuu tanaasulo laakiin aragtida isu arkaan waxa weeye dal go'ay inay yihiin bay isu arkaan oo SSC iyaga ay ka mid tahay
SSC maxay aaminsan yihiin inay dad halgama yihiin inay maxay ahayd dalka Soomaaliya kala go'isa diidan yihiin midnimo Soomaaliyeed rabaan dawladda xamar dawladoodii tahay meel fiican ay u marayso dhulkoodii xoreeyeen hada waxyaabahaas oo dhan xaqiiqo ma aha dhulkiina may wada xoreynin dawladda Soomaaliya dawladoodii ma aha marka in dhulkii adaan xoreyn aad iska dhaadhicisid inaad xoreysay oo laga haysto oo wadooyinka ka xiran yihiin oo madfac lagu la dhacayo oo lagu kor fadhiyo oo siyaasad ahaanna ay muuqato in gobolkii ay wali joogaan oo disbiid uu yahay oo dagaal ka socdo inaad tiraahdo waan xoreeyay waxa weeye dareenkaagii baad siixinaysaa kaarjibin baad siinaysaa sidoo kale inaad tiraahdo dawladda Soomaaliya waa dawladeydii oo saan ka rabay ii tahay taa qudheed waxa weeye dawladdii Soomaaliya dambiga ka galaysay baad koonfur ku sameynaysaa adigiina waad islu goynaysaa marka wax walba runta una laga sheego macna yaa ayyuhalladina aamanu kunu ma'a saadiqiin runta una la sheego marka dadkii ciddi ay u arkaysa runta iyaga u taala laakiin runta waxa weeye dawladda Soomaaliya deegaamada wali goynaysaa marka runtii waxaan rabaa in aan uga digo maamulka Jubbaland ha noqoto Baaya Boqol ha noqoto ama maamulada kale ay u tagi doonto ha noqoto oo Ismaaciil waxa la ninka la yiraahdo Cabdikariin Guuleed u tagi doono ha noqodeen in aanay garab ku siinin in Somaliland loo khayr meedo oo dambiga ay gashay laga asturo oo SSC maamulka ay samaysanayaan iyo horumarkooda la soo taago oo lagu qanciyo in la hoos geeyo Somaliland waxyaabaha in laga wada shaqeeyo dagaalka si daba dheeraanaya wax suurta gali doona ma aha laakiin dagaalka sokeeya si dheeraanaya waa la sii dilaya waa la sii nacaya waa la sii fashilmaya marka waa isku day fashilmayo oo haddaba aynu aragno inuu fashilmayo laakiin dadkii 33 sano isku dayada fashilka ah ee halkan la soo gaarsiiyay ayaa wali doonaya inay isku dayo qabiilo xuquuqdooda iyo deegaamo lagu duudsiyo marka barnaamijkan idin la wadaagay intaas ayuu ku kooban yahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh